mid ka mid a beelaha dega waqooyiga gobolka galgaduud oo kulan ku yeeshay degmada balanballe ayaa ka soo horjeestay golihii wasiirada ee uu 24kii bishan magacaabay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor waxaana ka qayb galay kulankan gudoomiye ku-xigeenka degmada balanballe odayaashii iyo waxgaradkii beeshan ayaa sheegay in golihii wasiirada ee la magacaabay aysan ahayn kuwa ku dhisan cadaalad oo aan lagu soo xulin saami qaybsiga beelaha waxaana ay xuseen inaysan aqoonsaneyn kana mid ahayn maamulka galmudug shirkan jaraa'id oo maanta aad isugu timaadeen ee beesha reer warsame ay isugu timid waxa uu daaran yahay ama inkiisu uu yahay waxa la rabaa inaan uga hadalno oo aan dareenkayaga ka muujinno iyo waxa aan ka qabno ama nooga aadan maamul goboleedkii galmudug golihiisii wasiirada oo la magacaabay oo lagu dhawaaqay waqti hadda ilaa 4 xamayn 3 xamayn laga joogo meelahaas oo xadgudub ballaaran looga sameeyay beelweyntan reer warsamadiin laguna xadgudbay saamigii ay ku lahayd beeluhu markii ay wax qaybsadaan annagoo ku hadlayna bulshadaas ballaaran ee beelweynta reer warsamadiini waxa meeshaas laga sameeyay inaysan ahayn wax cadaalad ku dhisan wax cadaalad inaba ku baalka ku dhisan inaysan ahayn wax saamay qaybta beelaha bahalkii ku qotaba inaysan ahayn mar labaad waxaanu cadaynaynaa waxaan uga mid noqonaynaa inaysan ahayn maadaama lagu xadgudbay xuquuqdii aasaasiga ahayd oo aan ku lahayn dhismaha maamul goboleedka galmudug qaasatan xubnihiisa golaha wasiirada oo nala ka gacan dhowray aan aaminsanayna inaanu lahayn ama aan xaq u leenahay xubnaha ugu mudan annagoon cidna ku dulmayn beeshaan waxay caan ku tahay oo lagu yaqaanaa inaysan dulmin dadka la wadaaga jaarka ayiin ama saamiyada la wadaaga inaysan dulmin waxaa roo lagu yaqaanaa dad qaata xadgudub iyo gardarro lagu sameeya inaysan beel qaadata inaysan hayna waa lagu yaqaanaa waxaan rabnaa inaan u sheegno oo si cad oo qeexan uga sheegno inaanaan aqoonsanayn aanaan ka mid noqonayna maamulka halkaas mudane madaxweyne qoorqoor uu ka sameeyey golihiisa wasiirada maamul goboleedka galmudug laga bilaabo saacadan beelweynta reer warsamadiini sharcigeedu ma qabto buliskeedu ma qabto nabad sugideedu ma qabato militarigeedu amni uma sugo madaxweynaheedu ma matalo waxaan aaminsanahay oo kaleeto barnaamijyada qaabka loo karkarinayo dowladda federaalka iyo farmaajo inaysan ka marayna waa aaminsanahay sababto ay tahay qoorqoor waxaan ognahay inuu wiilkii farmaajo yahay haddii ay federaal tahay iyo haddii ay tahay maamul goboleedka galmudug madaxdiisaba midaan uga mid noqonayna ama ku qancayna maaha beelweynta reer warsamadiini waxaan ugu baaqayaa dal iyo dibadba inay si degdeg isugu yimaadaan shir gobashan way sii fitanaan doontaa waxaana looga tashan doonaa masiirka degmada balanballe oo anagu midigtaan u nahay beeshu ciddii ay isqabtaanna waxay jecel yihiin inay iska dhiciyaan aysan aayaroo gebina aysan u samrin bay jecel yihiin dadka sidaasa waxaan ku sii dhiirigelinayaa sidaas iyo si ka fiican baan ku sii dhiirigelinayaa beesha reer warsame saamigii ay lahayd haddii ay ka weyday galmudug iyo qoorqoor laga bilaabo saacadan wax xad ah oo isugu xiran inaba haleekaatee ma jirto reer warsamaha dibadda iyo daakhilka jiraba inay u shiraan oo ay shiraan degmada masiirkeeda ay u shiraan isagana yimaadaan waxaa noo soo baxday galmudug dulmi inay ku bilowbatay hadday wasiir leedahay inay ku bilaabatay hadday fadhi leedahay inay ku bilaabatay waxaan go'aansanay haddaanu nahay beesha reer warsame intaanaan ku ungoobin bannaanka inaan ka istaagno laakiin ayadu naga maaranto ha ku tala gasho saacadda laga bilaabo inaan anagu ka baxnay uusan ugu talagelaynin dhibaatana asagu sameeyay dadkii dariska ahaa oo haddii alla ku imaayo maanta galmudug fadqalala ka bilaabatana dhibku bartiisa inuu ka miismahayo ha ku xisaabtamo qoorqoor masiirka koobaad oo balanballe annaga weeye xoogga iyo qawida koobaad ilaahay baa iskale laakiin balanballe annagaa iskale saacaddaa laga bilaabana galmudug ma dhihin annagu waxaan u sheegaynaa madaxweyne qoorqoor iyo waxaa weeye dowladdiisa waxaan u sheegaynaa saacaddaa laga bilaabo mar haddaan mudnaantanadii weynay inaan waxba isugu kaannaa xirayn
oo waxa weeye wax soo kana xiran oo wanaagu aysan jirin nin walba tabartiisa inuu tilaabsanayo ugu dambeyntii ayaa waxaa kulankan ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Balanballe Nuur Maxamed Diirshe halkaan isugu keenay waa dhib ay ka tirsanayaan gobolka dhismihii ugu dambeeyay oo la dhisay oo xaqoodii ay ka waayeen ay filahayeen oo ku hurdeen oo guryahooda ku jiifeen ayay waayeen markay waayeen oo ay filahayeen in xaqoodii la mudo iyo waxay mudnaan galmudug uga lahaayeen marka ay waayeen ayaa waxay dantu ku qasabtay inay shucuurtooda iyo arrimahooda muujiyaan runtana sheegaan si kastaba tan iyo markii la magacaabay golaha wasiirada cusub ee maamulka Galmudug ayaa waxa isu soo taraya suluuga beelaha Galmudug ay ka muujiyeen saami qaybsiga beelaha ee golaha wasiirada waxaana beelaha qaarkood ay sheegeen in kalsoonidii ay kala noqdeen maamulka Galmudug oo aysan ka mid ahayn Ayala Cabdullaahi Jaamac Honkebel TV magaalada Balanballe